إنا لله وإنا إليه راجعون. qaraxyo mutaanaha oo sixiga ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelo waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho. Hadaba weerarkan oo markii hore ku bilowday qarax ayaa hoteelka Xayaat waxaa gudaha u galay ururka Al-Shabaab iyadoo wali ay xabad ka dhacayso gudaha dagaalka. ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ay hogaaminayaan Haramcad ayaana isku gadaamay eeriyada iyadoo farxan qaroole taliyihii hore Haramcad haddana ah taliyaha booliska gobolka Banaadir oo markaan sida la sheegay hogaaminayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa markaas isu adeegsanaya saraakiil ka tirsan dawladda ayaana ku dhaawacmay qaraxan. waxaana sidoo kale eeriyada yaala gaari qaraxa oo la sheegay in markaasi loogu talagalay in markaasi gurmadka qaraxa lagu dhibaateeyo. hadaba xogta ugu dambeysay ee daawada halkan kugula wadaagaya waa sidee xaalku meeqof ayaa ku dhaawacantay sideesa loo gudbay hoteelkan ka dhow eeriyada laga galo airportka Aadan Cadde International Airport. hadaba inta aan bilaabin xogtan kuwada daawada haddii ay tahay markii koobaad soo booqato channelkeena Xalana Media subscribe oo furo gambarka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena like share sidoo kale share gari oo la wadaag asxaabtaada mahadsanid. qaraxyo saddex oo sixiga ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan eeriyada number 4 iyadoo la galay hoteelka Xayaat oo ku yaala halka laga galo airportka ama meesha lagu hubiyo baabuurta u socda gudaha airportka. meeshan oo ahayd meel amnigeeda aad loo adkeeyay horena ay ururka Al-Shabaab dhowr mar u galeen ayaa markan iyadoo dad ay ku caawinayaan waxaa gudaha u galay baabuur qaraxa ama ay saaran yihiin walxaha qarxa. markii xigana waxaa gudaha u galay goobta dagaalyahano ka tirsan ururkaasi markaasi si aan caadi ahayn u hubaysna. sida la sheegay dad badan ayuu wax ka soo gaareen dhibaatada ka dhacda halkaasi waxaana wali ka dagaalamaya gudaha hoteelka dad markaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab. dagaalku waa xoogeysanaya gurmadka ciidamada dawladda ayaa marba marka kale sii gaaraya iyadoo booliska ay codsanayaan taageero dheeraad ah si markaasi loo soo afjaro dagaalkan. hadaba dagaalkan ayaan sida aan hore ku sheegay ku bilowday marka hore sida caadiga ahayd gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxaana meeshaas ku nafwaayay darawalkii gaariga maadaama la sheegay in ujeedku ahaa in hoteelka markaasi lagu galo. dad badan oo shacab ah oo u rawaxay shaqadooda ayaa qaraxa ku waxyeeloobay ilaa ay haddana lama sheegin tirada dhimashada iyo dhaawaca. waxaa sidoo kale kamid ah taliyihii laanta waliyo cadde ee gobolka Banaadir gaar ahaan ciidanka booliska oo magaciisa lagu sheegay taliye Korow halka ayuu ku dhaawacmay madaxa ayna ka soo gaareen. hadaba daawade waxaan xogtan kugula wadaagayaa oo markan si toos ah ugu faahfaahinaya Ali Aadan Muumin oo ka tirsan saxafiyiinta ugu saameynta badan sidoo kalena ah kuwa inta badan xogta badan ka haya qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho oo isna markan aan xogtiisa idin la wadaag وهاجد داود يال سو دواada waxaan rabnaa inaan warbixin idinka siino qarax magaalada Muqdisho ka dhacay iyo saameyntiisa. waxaan rabnaa warka inaan bilaawno dadku marka ay inta hadda ay yihiin ay ka soo yara roonaadaan si faahfaahinta hal mar loo helo. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan halkani waa barta rasmiga ah ee aad wararka kala socotaan. page-kanina waa mid u adeega adinku sida aad xogta u heli lahaydeen. intaasi kadib wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa iminka waxa ay sheegayaan in qaraxyo tiradoodu marka ay dhaceen gaaraya ilaa iyo 4 in ay ka dhaceen aaga kilometer 4 gaar ahaan hotel lagu magacaabo Xayaat oo ku yaala halka loo yaqaano lambar 4 aageeda wuxuuna ku dhow yahay hoteelka kale ee caanka ah ee Saxafi ama si kale hadii aad u taqaano aaga CID-da Muqdisho ama si kale hadii aad u fahmayso wadada koobaad ee baaritaanada looga maro airportka Muqdisho marka aad doonayso inaad aado ee aaga lambar 4 aad ka timaado. hoteelka Xayaat oo dhowr jeer hore la weeraray wararka ayna helayno waxa ay sheegayaan in markii koobaad gaari qaraxa lagu weeraray markii qaraxu dhacay kadibna koox dagaalamayaal ahi gudaha ay u galeen. wararka aan helnay waxay xaqiijinayaan in sargaal booliis ah oo lagu magacaabo Mahad Korow uu dhaawac soo gaaray madaxana uu ka dhaawacan yahay. waa saraakiisha amniga ee qaraxa waxyeeladu ay ka gaartay. mid kamid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa oo qudhiisu uu gaaray dhaawac fudud ayaa noo xaqiijiyay in markii koobaad ay arkayeen gaari isqarxiyay oo doonaya in uu dhibaato u geysto dadkii halkaasi joogay
markaa wixii ka dambeeyey wararka aan helnay iyo sida goobjooguhu noogu warramay waxay ahaayeen in marka uu qaraxu dhacay kadib dagaalamayaasha ay gudaha u galeen hoteelka lagu magacaabo xayaad ee ku yaala magaalada muqdisho waa aaga number 4 sida aan hore idinkugu sheegay sidaa daraaddeed qarax marka uu dhacay dagaalamayaasha oo gudaha u galay goobjoogaha nala hadlay wuxuu xaqiijiyey in hub aan loo meeldayin meel kasta ay u tuurayeen dadkiina ay toogasho ku bilaabeen wuxuu noo caddeeyey in uu arkay dad fara badan oo goobta daadsan inkastoo jawiga jiray aawadii uusan tirakoob samayn karin noona sheegi karin wararka kale ee laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya aan ka helnay waxay xaqiijinayaan in ciidamada sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo Haramcad ay goobta soo gaareen isla markaasna doonayaan inay soo afjaraan kuwa weerarka soo qaaday ee weeraray hoteelka lagu magacaabo xayaad ee magaalada muqdisho mahadkorow dhaawiciisa marka laga soo tago waxaa wararka kale ee aan helnay ay sheegayaan in ilaa iyo iminka ay rasaasu socoto baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa isagana la dhigay aaga CID da muqdisho si kooxda weerarka soo qaaday dadka soo gurmanaya ay waxyeelo kale ugu geystaan laamaha ammaanku waxay xaqiijiyeen in looga baahan yahay dadweynaha iyo ciidamadaba inay ka digtoonaadaan gaariga halka yaala marka taa laga soo gudbo dhaawaca soo gaaray mahadkorow waxaa noo xaqiijiyey saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya oo howlgalka hadda socda qayb ka ah wararka kale aan helnay ayaa sidoo kale xaqiijinaya in xaaladdu iminka ay tahay hub culus adeegsigiisa isla markaasna dadku ay arkayaan hubkaasi dhacaya maqalkiisana ay arkayaan ciidamada halkaasi la keenay ee la yiraahdo Haramcad ayaa iminka ku dadaalaya sidii ay u soo afjari lahaayeen dagaalka soconaya iyo waxyeelada in la yareeyo hoteelka xayaad oo kamid ah hoteelada magaalada muqdisho wuxuu dhibana u ahaa kooxaha ka dagaalama Soomaaliya iyadoo qaraxyo horena ay ka dhaceen markasta oo la dayactiro ama noloshu ay si caadi ah ku soo laabato waxa ka dhaca qaraxyadan oo kale tan iyo markii la doortay ama dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho ayaa laba jibaarmay marka loo eego maamulkii iyaga ka horeeyay inkastoo ay hadal hayn kale jirto oo ku saabsan in qaraxyada iminka ka dhacaya magaalada muqdisho ujeedooyin kale ay leeyihiin laakiin shacabku waxay arkayaan qaraxyadaasi dhacaya iyo waxyeelada aan loo meeldayin ee ka dhalanaysa wararkan daawadayaal wixii ka soo kordha markasta adiga ayaa ugu horeeya cidda daawata ee maqasha faahfaahinta halkan ayaad ka heli doontaa ee mar walba nala joog waadna ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka page-kan wararka aynu ku soo gudbino faahfaahinta warkanna dib ayaad kala socon doontaa wax kasta oo ku soo kordha magaalada muqdisho qaraxyadu aad ay markani ugu yaraayeen bilii la soo dhaafay qaraxana wuxuu noqonayaa mid yimaad xilli lama filaan ah waana markii ugu horeysay oo hotel la galo sida aan qiyaasayo inta uu talada hayay Xasan Sheekh Maxamuud oo talada lagu wareejiyay 15 May iyadoo hadda taariikhdu ay marayso ku dhawaad 20 bisha Agost ee sanadka 2022 waa kuma sida daawashada muuqaalkan hadii ay tahay markii koowaad asabaqta channelkeena xalana media subscribe oo faragan balka si aad u noqdo daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena like saar muuqaalka share gareey lana wadaag asxaabtaada mahadsanid